xaqiiqdii wiilkaygii waan gartay in adiga jin iyo wax kale aad la socotid laakiin aabe jinka iyo ruuxaanta waxaa ka weyn quraanka ilaahay aabe macaan xilligan wixii ka dambeeyo quraan ayaa lagu saarayaa jin iyo ruuxaan waxa ka adag kalaamka ilaahay xilliga wixii ka dambeeyay aabe wuxuu bilaabay inuu xoolo qalo culimo walba in la keeno aniga quraan lay saaro quraanka hadii lay saaro oo culimada ay baxaan way iimaanaysaa xataa dadka oo joogaan ayaa ii iimaanaysaa waagi hore dadka oo joogaan ima iimaan jirin aniga gooni aadi jiray markaasaan arki jiray laakiin quraan saarkii markii lagu bilaabay markii culimada albaabka ka baxaanba way iimaanaysaa oo waan arkayaa iyadoo dhoola cadeynayso mar walba waxay leedahay adiga inaad dhimato ay inaad nolosha ila wadaagto wax ka dhaxeeyo ma leh haddii quraan saarkan la joojin waayana ugu dambeyn waan ku kaxaysan doonaa oo baddaan ku geyn doonaa baddaana igula noolaan doontaa aniga marka waxaan noqday qof murga waayo qof bidaadan ah oo jin ama ruuxa la noolaanay jacayl ma jira xaqiiqdii arrintii aabbaan la wadaagay aabba waxaan ku dhahay culimada albaabka markay ka sii baxayaan way ii imaanaysaa oo waxay leedahay haddii quraanka la joojin waayo ugu dambeyn waan ku kaxayn doonaa oo baddaan ku geysan doonaa aabba way ii hanjabtay waxay tiri quraanka hal la joojiyo haddaan la joojinin baddaan ku geysan doonaa aabba wuxuu yidhi waxaas waa beenteeda quraanka ilaahay iida kama weyno quraankan lagu saarayaa quraankii ayaa lay saaray wuxuu quraanka socdo waan waayay muddo isbuuca way iimaan weysay oo nolosheedii ayaa si caadi ah ku soo noqotay aad baan u farxay 6 bilood markaan gabadhii laahay oo ayna ii imaanin oo aan dareemay inaan nolosheeda caadi noqotay 6 bilood kadib ayaa anigu waxaan isku dayay inaan gabar xiriir la soo biyo waa xiriirkii igu horeeyay ee aan la yeesho qof bidaadan anigoo kala ah waayo 4 sano xiriir jacayl waxaan la lahaa gabar ruuxaana hadiiba hadda 6 bilood ay iga maqan tahay waxaan go'aansaday inaan xiriir soo biyo xilliga gabaraan u arkayay inaan xiriir la wadaago ayaan xiriir u soo sheegtay galabtii xiriirkii ayay gabadhii iga aqbashay habeenkii xaafadda markaan imaaday oo inaan seexdo maagay ayaa habeenkii seexan waayay aniga dhan culays iyo cabsi ayaa gashay waxaan dareemay waxaan weligay in nolosheeda hore u arkin ugu dambeyntii gabadhii 6 bilood aan waayay ee ruuxaantii ayaa dib igu soo noqotay habeenkii aad baan u murgay waxay igu tiri aniga runtii quraan sidaa ii saarayseen waad i buriseen laakiin maxaad u malaysay inaan kaa tagay oo aan ku nabadgeliyay horaan kugu sheego waxaan ku dhahay inta noloshaada ka dhiman aniga meehe qof kale ama gabar kale nolol lama wadaagaysid caawa waxaan u soo noqday waan ku ogahay maanta inaan gabar xiriir jacayl xaqiiq waxay tahay aniga waan ku jeclahay 4 sano ayaa xiriir jacayl naga dhaxeeyay aniga waan ku dhibi waayay culays waan ku saari waayay sidaas daraadeeda kor ayaan ka ilaalsanayay laakiin haddaad bilowday inaad ma aragtay naag xiriir la soo biso lagama yaabo noloshaada inta ka dhiman gabaraan aniga ahayn inaad xiriir la soo biso marna ma dhacayso adigu waqti alla waqti aad ii baahato anigu waan kula joogaa haddaad mar walba ii arkaynin laakiin ogow anigaa mar walba ku arkaayo marna lagama yaabo in ma aragtay aad naag xiriir la soo biso way iga tagtay anigu ma aanan aaminin aabba ayaan u sheegay quraankii ayuu aabbiigu bilaabay anigu gabadhii xiriirkaan la lahaa ayaa haddana la kulmay oo habeenkii aan la soo sheekaystay habeenkii markaan soo noqdo oo xaafadeedii imaaday waxay igu bilowday inay ceejiso anigu waxaan galay xaalad halis ah waayo nolosheeda layma ceejin jirin laakiin hadda waxay bilowday inay ceejiso waan qeylinayaa lugahan rafinayaa cid walba ii imaato igama fujin karta ceejida lagu haayo quraana lay saaraa wax walbaa lagu soobiyey anigu waan rafaaday xaqiiqdii ugu dambeyn waxaan go'aansaday inaan gabadha xiriirka la lahaa aan iska joojiyo haddaan xiriir gabar la soo binin nolosheeda keligayga wato oo aan wax dumara xiriir la soo binin iima imaanayso laakiin maalintii aan gabar la soo hadlo oo aan la soo kulmo habeenkeeda ceeji ayaa ii taalo anigu waxaan go'aansaday inaan magaalada muqdisho ka tago muqdisho ayaan ka tagay talyaaniga ayaan tagay maalintii aan talyaaniga ku suganahay haddii aan gabar xiriir la soo biyo way ceejinaysaa xaqiiqdii nolosheeda waxay noqotay mid ruuxaan kaliya u xiran 31 jiraan ahay culimada waaweyn xataa waa la ii keenay oo quraan waa lay saaray sheekhi talyaaniga imaado waan u tagaa quraan oo isaaraa xaaladeydana waan u sheegaa xaqiiqdii waxaan noqday qof noloshiisa aan qof dumar ah shukaansan karin waxaan soo biyo waan garan lahay iyadoo waxay tiri markii ugu dambeysay anigoo kaliya ku leh xilligaad ii baahato waan ku hor imaanayaa laakiin marna lagama yaabo anigu qof aan ahayn
inaa xiriir jacayla la soo biso marna ma dhacayso. maalintan gabar la soo kulmo habeenkeeda anigu ceeji iyo rafaad ayaa ii taalo 31 jiraan ahay. noloshayda waxay noqotay qof maaragtay halkaasi kaliya ku kooban. aniguna waxaan ahay qof bidaadan caadi ah oo ruuxaan nolol iyo xiriir lama suubin karo oo 4 sano hore ayaa iga soo dhuntay anigu aan fahansanayn. haddana gabar caadi ah ma jeclaan karo, xiriir lama suubin karo. maalintan xiriir la soo suubiyay habeenkeeda sariirta aan ku rafaadaya way ceejinaysaa. da'daydu way socotaa. quraan walba oo la saaro ruuxaantaa way iga fogaan weysay. waxay leedahay waan kugu dhex noolahay marna dumar agteeda ma tagi kartid. arrintan waxaan idinku soo gudbiyey waa 2 arrimood. marka hore inaad ii soo ducaysaan. waxaan ahay wiil walaalkiina oo rafaadsan 6 iyo 10 sano ayaa ruuxaantan ii timaaday. maantay oo 31 sano jir ahayna way daba socotaa weli oo qof nolol lama suubin karo. anigana eeda nolol lama suubin kari. eedana waa ruuxaan, aniguna waxaan ahay qof bidaadana. waxaan rabaa culayskan isaaran inuu ilaahay iga dulqaado ayaan rabaa inay ii soo ducaysaan. runtii nolosha waan ku rafaaday. maanta waa shaqaysan karaa, meeshaan raba caalamka waan ka aadi karaa, laakiin nolol ma suubsan kari, caruur ma dhali kari, oo xaas ma guursan kari. eedaa i daba taagan, qof nolol u baahan, da'diisana ay socoto. noloshayda waxay noqotay mid murugaysan. waxaan ahay qof maaragta aan xor u ahayn noloshiisa oo gabadha uu rabo xiriir la suubin karin. qofay ruuxaan xabsi gashatay ayaan ahay. waxaan rabaa inay ii ducaysaan. waxaan ahay wiil walaalkiina ah oo dhibaataysan inuu ilaahay iga dulqaado ruuxaantan laygu soo saladay, waayo nolol ayaan u baahanahay. tan labaad waxaan rabaa waddo walba aa maraysaan inaad coodubilaysataan. haddii aad aragtaan gabar qurux badan iska hubiya. xaqiiqdii aniga shalay quruxdeeda ayaa ma aragtay qancisay. dadka oo dhan darteedaan ugu go'ay. qofkina ma ahayn qof dad caadi ah ee waxay ahayd qof ruuxaana. inaadna ka fogaataan qof qurux badan inaad aragtaan ama wiil qurux badan ama gabar qurux badan idinkoona hubsanin qof bidaadan ah caadi inuu yahay. nolol ha la suubinina, hana ku sii fogaanina. waayo bilowga hore haddaa anigu reerkayga u sheegi lahay waxaa laga yaabaa heerkan inay gaarsiin lahayn. laakiin 4 sano ayaan xiriir jacayla lahayn. 2 qof oo waqti walba si gooni ah u sheekaysato way igu dheeraatay, way igu fogaatay. maantana ugu dambeyn waa layga kari waayey. idinkana gabadha iyo wiilkaad aragtaan iska hubiya in ruuxaan iyo jin iyo qof bidaadan uu yahay. muhiimaddu waxay tahay inay ii soo ducaysaan. waxaan ku dhahay walaalkayga waa qiso aad u xanuun badan, murugo badan. waayo 16 jirkaagii ruuxaantii ku soo raacday ayaa ilaa maanta dhibaato kugu hayso. waxaan ilaahay kaaga baryayaa in ruuxaantaasi ilaahay uu kaa dulqaado. ilaahay ayaa wax walba awoodo. waan kuu soo ducaynaynaa waayo waxaad tahay wiil mustaqbal iyo nolol rabo. waxaad ii sheegtay maalintii aad gabar la soo kulanto habeenkeeda in lagu ceejinayo aad rafaadsan tahay ilaa maantina aad nolol suubsanin. ilaahay waxaan kaaga baryayaa inuu ilaahay culayska ku saaran kaa dulqaado. ruuxaantan imtixaanka lagaaga dhigay inuu ilaahay kaa dulqaado. ilaahayaan kuu baryaynaa. walaalaha qiimaha badan waad ujeedaa wiilka walaalkeena ruuxaan ayaa ilaahay ku soo ibtaleeyay oo maanta nolol uu la suubsan laayahay. aan u ducayno inuu ilaahay culayska ka qaado. qof walba oo muuqaalkan arko walaalkeena u duceeya. midda labaadne talada iyo fikirka uuna siiyey aan wada qaadano dhammaanteena. haddii aad aragto wiilow, haddii aad aragto gabar qurux badan iska xaqiiji waxay tahay. gabaray adigane haddii aad aragto wiil qurux badan quruxdiisa kaliya ku deeqine iska hubi waxa uu yahay. maanta wiilka walaalkeena ayaa la rafaadsan. 16 jirkiisii ruuxaantii jacayl u qaaday ayaa maanta isagoo 31 jir ah nolol kale uu ka suubsan laayahay. waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu ilaahay ka dulqaado. anagana waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ma aragtay kulanba noogu dhigin ruuxaan iyo wax lamid ah. aan u ducayno walaalkeena. muuqaalkaani runtii waa muuqaal ka duwan muuqaaladeena, waayo qof intaasoo sano ruuxaan xabsi ay ku haysato aad bay u xanuun badan tahay. dhammaanteen aan u ducayno, taladiisana aan qaadanno. hadduu yahay muuqaalkii kugu horeeyay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto, asxaabtaada u share garayso. like-gaaga waa ii muhiim. walaalaha qiimaha qadarinta iyo sharafta mudan ee hiigsi lambar 1 ku xiran mar walba waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin. heerkan hiigsi uu soo gaaray ilaahay ka sokow heerkan idinkaa soo gaarsiiyey. mar walba waa mahadsantihiin aan idin dhaho, marna kama daalo. asxaabtiina gaarsiiya si aan maaragtay wadada aan ku soconno aan u gaarno iyo hiigsiga aan leenahay. muuqaalka share gareeya, laageena waa ii dhiirigelin. halkeena aan u ducayno qaybta qoraalada ilaahay inuu culayskan ka dulqaado. muuqaal walba aad daawato waxaan kaa codsanayaa wixii aad ka faa'iiday inaad ma aragtay maalin ku xisaabtanto asxaabtaadan gaarsiiso. halkaa naga daawanaysaan waa hiigsi. anigu waa Subra Carab. mar walba waxaa idin leeyahay ha guulaysta jacaylka,
ha guulaysta jacaylka. halkani waa hooyga qisooyinka ahiigsi lambar 1 mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo dheh una share gareeya asxaabtaada hayloobin page-kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka oo anigoo ah Subar Carab.